Ghana ama sida rasmiga ah magaca loo yaqaano Jamhuuriyadda Ghana waa dal juqraafi ahaan dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Dhulku waxa uu ku dheerarsan yahay biyaha gacanka Guinea iyo badweynta Atlantic. Waddanka Ghana waxa uu xad la leeyahay Burkina Faso oo waqooyiga kaga beegan, Togo oo bariga ah, iyo Ivory Coast oo dhanka galbeedka xigta. Ghana waxa ay ka kooban tahay 10 gobol oo u kala qaybsan 216 degmo. Accra waa magaalo ka samaysantay 3 tuulo oo isku darsamay. 3daasi tuulo ayaa noqday caasimadda dalka Ghana ee Accra. Waxa lagu qiyaasaa in magaalada ay ku nool yihiin milyan iyo bar ilaa 2 milyan iyo bar dad gaaraya. Accra ma ahan oo kaliya caasimadda Ghana ee waa magaalada ugu weyn dalka. Waxa ay ku taallaa koonfurta dalka, waxayna saaran tahay badda Atlantikada. Magaaladu waxa ay u dhaxaysaa caasimadda Togo ee Lomé iyo Abidjan ee dalka Ivory Coast. waa xarun muhiim u ah ganacsiga, isgaarsiinta iyo warshadaha dalka Ghana. Dhismayaasha Accra ayaa isugu jira kuwa casri ah, qaar la dhisay waqtigii gumaysiga iyo kuwa qaabka loo dhisay Afrikaanimo ay ka muuqato. Qasriyo taariikhdooda ay dib ugu noqonayso qarnigii 17aad ayaa magaalada ku yaala. Magaalada Legon oo aan ka dheereen Accra ayay ku taallaa jaamacadda caanka ah ee Ghana University, waxaana la aasaasay sanadkii 1948. Portugiiska ayaa markii ugu horeysay tagay halka ay magaaladu ku taalo qarnigii 15aad. Accra waxa Portugiiska laga qaaday qarnigii 17aad, waxaana xoog ku maquuniyay oo isugu tagay Holland, Denmark iyo Ingiriiska. laakiin markii dambe ayaa Ingiriisku oo ay ahayd qarnigii 19aad ay ka iibsadeen Holland iyo Denmark. sanadkii 1876 ayay noqotay caasimadda Ghana oo waddanka xilligaasna loo yaqaanay Gold Coast ama xeebta dahabka, waxaana xukumayay Britain. hadda magaaladu sida magaalooyinka kale ee Afrika ku yaala way ballaaratay, waxaana dadka ka muuqda dhaqdhaqaaq badan oo firfircooni leh, taas oo aad ka arkayso muuqooda, gaar ahaan labiskooda iyo habka ay dadka ula hadlaan. ilbaxnimo halka ay ka gaareen waxaad arkaysaa xitaa labada qof ee tallaabo isu jira hadalkooda ma maqli karo qof kale oo saddexaad, sida Soomaalida hadalkooda uma dheera oo dadka kuma dhibaan. magaalada Kima waa magaalo weyn, waana magaalo deked leh, waana magaalo kulansatay xadaarad iyo ilbaxnimo fog. sidoo kale waa magaalo wax soo saar oo dhinaca warshadaha caan ku ah, sida aluminiyumka, biraha, kalluunka la warshadeeyo, shamiindada iyo maadooyinka kiimikaalka ah ay soo saaraan. magaalada Cape Coast oo dhacda bartamaha koonfurta Ghana waa magaalo xarun u ah dhaqanka, ilbaxnimada, aqoonta iyo dalxiiska, waxaana ku taalla jaamacadda weyn ee la yiraahdo Cape Coast University. bulshada magaaladan ku nool waxa ay magaalooyinka kale uga sii horeeyaanba xagga bashaashnimada, soo dhaweynta, martisoorka iyo la qabsiga dadyowga kale. tirada dadka Ghana oo lagu qiyaaso 27 milyan oo ruux waa dad ay ku weyn tahay Afrikaanimada, dhaqan ahaanna ku adag oo si aad ah u weyneeya hidaha soo jireenka ah ee bulshooyinka Afrikaanku ay leeyihiin. waayadii hore waddanka Ghana waxaa loo aqoon jiray xeebta dahabka. intii u dhaxaysay sanadadii 1314 ilaa 1896 waxa ay ku hoos jirtay gumaystayaashii Britishka. halgan dheer oo naf iyo maalba uu ku baxay kadib, ugu dambeyn waxa ay madax banaanidoodii heleen sanadkii 1957, wuxuuna ahaa waddankii ugu horeeyay ee galbeedka Afrika ku yaala oo xornimadiisa qaata. 6 Maarch 1957 markii ay madax banaanida heleen, waxa ay go'aansadeen in magacii ahaa xeebta dahabka ay u bedelaan waddanka Ghana. halgankii ay Ghana xornimada ku qaadatay raggii hogaaminayay waxaa ka mid ahaa Kwame Nkrumah, kaas oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay Ghana oo madax bannaan. Ghana bad ahaan waxa ay ku fadhisaa dhul cabirkiisu yahay 239,460 kiiloomitir oo isku wareeg ah, waana waddanka 8aad ee caalamka marka la eegayo baaxadda dhulka. luqadda rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Ghana waa af Ingiriisiga, iyada oo bulshooyinka ay af Ingiriisigu ku dhex daraan lahjado looga hadlo galbeedka Afrika.
waxaa kale oo jira meelaha qaar oo looga hadlo afaf maxalli ah sida Akan, Moshi Dogomba, Ewe iyo Ga oo dhammaantood ah luuqado Afrikaan ah. badanaa muslimiinta Ghana waa dad ku hadla afka Hausaha. bulshada muslimiinta ah tira ahaan waxaa lagu qiyaasaa 30% waxayna ku jiraan heerka labaad, waxayba ka badan yihiin kuwa haysta diinta Kirishtaanka oo lagu qiyaaso 24% guud ahaan bulshada Ghana. muslimiinta Ghana waxaa kaliya oo ka badan dadka haysta diimaha dhaqanka la xiriira. lacagta rasmiga ah ee dalka Ghana waxaa lagu magacaabaa Ghanaian Cedi. 10kii Ghanaian Cedi sarif ahaan waxa uu u dhigmaa $1.65. nidaamka maamul ee dalka ka jira haddii aanu milicsano sanadkii 1981 waxaa la afdhibiyey xukuumaddii rayidka ahayd ee la doortay sanadkii 1979 laga bilaabo 1981 ilaa 1992 waxaa dalkaasi hogaaminayay nidaam militari. isla sanadkaasi shacabku waxa uu isku raacay in la sameeyo dastuur cusub oo dhiirigelinaya in madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo hay'adda sharci dejintaba ay ku yimaadaan nidaam doorasho. mar kale ayaa dalkaasi lagu qabtay doorasho madaxtinimo oo ay shacabku codkooda dhiibteen. Ghana waxaa ka shaqeeya baarlamaan ka kooban 200 oo xubnood oo xildhibaano sharci dejiyayaal ah. ciidamada Ghana waxa ay ka kooban yihiin ciidanka dhulka, ciidanka cirka iyo ciidanka badda. taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada waddanka waa madaxweynaha jamhuuriyadda. meelaha ugu badan ee loo dalxiiso waddanka Ghana waxaa ka mid ah beerta xayawaanada ee ku taala qalcadda waqooyi ee magaalada Cape Coast, meel 20 kiiloomitir u jirta deegaanka. beertaasi lagu xanaaneeyo xayawaanada waxaa ku hareeraysan beeraha wax soo saarka kakawga oo Ghana ay caan ku tahay isla markaana u dhoofiso wadamada qaar. cimilada Ghana waa mid kala duwan deegaanada. waxaa dhici karta sida ay goboladu ugu kala duwan yihiin xagga jihooyinka ay kala xigaan in ay u kala duwan yihiin xagga cimiladana. deegaanada bariga xiga ee xeebta ku yaala waa kuwo diiran oo isla markaana qalalan. deegaanada dhaca galbeedka Ghana waa dhul qoyan oo huur ah. deegaanada ku yaala dhanka waqooyina waa kulayl haddana qalalan. si guud marka loo eego Ghana halka ay ku taalo gacanka Guinea, dhul baraha dhowr darajo ayay ka xigtaa dhanka waqooyi. sidaas darteed jamhuuriyadda Ghana waxaa lagu tiriyaa in ay tahay dhul cimilo ahaan diiran. dhinaca tacabka iyo wax soo saarka, reer Ghana intooda badan waxay u kala qaybsamaan kuwa kalluumaysato ah oo badaha ka shaqaysta oo wax ka soo saarta halkaas, iyo qaar beeraley ah oo ku tiirsan tacabka iyo wax soo saarka beeraha. beeraha dalka Ghana waxaa ka baxa dalagyo ay ka mid yihiin bariiska, galleyda, muuska, kookaha oo dalka Ghana uu caan ku yahay, iyo geedka laga sameeyo looxa ee temberka. intaas